dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo in doorashadu noqoto mid hufan oo daafran oo ku dhacda waqtigeeda ayaa looga hadlay kulan maanta ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble la yeeshay midowga musharaxiinta halka uu ka dhageystay talooyin ku aadan sidii loo dardargelin lahaa howlahaasi. midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyin ku aadan turxaan bixinta iyo kala cadeynta qodobada qaar ee ku xusnaa habraaci doorashada ee golaha wada tashiga qaranku ay soo saareen 24 bishan. ra'iisul wasaare Rooble iyo midowga musharaxiinta ayaa isla gartay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo wajiga labaad ee bilaabashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si dhowna looga wada shaqeeyo arrimaha u baahan kala cadeynta sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta kulan la yeeshay golaha midowga musharaxiinta. Ra'iisul wasaaraha iyo golaha midowga musharaxiinta ayaa ka wada hadlay sidii loo dardargelin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana doorashadu ay u noqon lahayd mid cadaalad ah oo hufan oo ku dhacda waqtiga loogu talagalay. golaha midowga musharaxiinta ayaa ra'iisul wasaaraha la wadaagay talooyin la xiriiray sidii loo turxaan bixi lahaa qaar ka mid ah qodobada habraaci 24 bisha August sanadkan golaha wada tashiga qaranku ay gaareen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka iyo qodobada u baahan in kala cadeyn iyo tafsiir dheeri ah laga bixiyo. ra'iisul wasaaraha iyo musharaxiinta ayaa isku raacay in si dhow looga wada shaqeeyo sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si degdeg ah u dhacda oo hufan isla markaana la xalliyo dhammaan arrimaha u baahan in muxuu ahaa la kala cadeeyo ee ku xusan habraacyadii iyo heshiisyadii doorashooyinka la gaaray si dhowna looga wada shaqeeyo dhammaan muxuu ahaa in doorashadu waqtiga loogu talagalay ay ku dhacdo. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ugu dambeyntii uga mahad celiyay musharaxiinta talooyinkooda iyo sida markasta ay ugu baraarugsan yihiin arrimaha doorashooyinka wuxuuna u ballan qaaday isaga iyo golaha uu hadda gudoomiyo wada tashiga qaranka in ay ka go'an tahay in doorashada wajigeeda labaad uu si degdeg ah ku bilowdo doorashadu inay noqoto mid hufan markasta in loo dhaga nuglaado oo la dhageysto tabashooyinka iyo talooyinka ka imaanaya guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaana u ballan qaaday in markasta uu soo dhaweynayo talooyinka iyo aragtiyada ka imaanaya musharaxiinta iyo dadka kale ee Soomaaliyeed guud ahaantood. Nasr Bashiir Ali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.